بسم الله الرحمن الرحيم كلنتو وعلى wanaagsan qaarteena daawanaysa dhamaantiin ba meel kasta oo aad ku sugantiin waxaan idinku soo dhaweynayaa xubinta markaasi aynu ugu magac darnay xasuusta fanaanka toddobaadkan waxaynu ku soo qaadanaynaa fanaanadii caanka ahayd Allah u naxariistay Xaliima Khaliif Cumar Barre Magool haddaba maxaynu ka naqaanaa maxayse markaasi taariikhdii fanaanadaasi ahayd oo ay caanka ku ahayd haddii aan ku bilaabo Xaliima Khaliif Cumar Barre Magool waa magaceeda oo saddexan waxaana la sheegay inay ku dhalatay gobolka Galgaduud caasimadiisa Dhuusamareeb Xaliima Khaliif Cumar Barre Magool waxaa dhalay caalim si aad ah markaa looga yaqaan Soomaaliya iyo guud ahaan gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya Xaliima Khaliif Cumar Barre Magool waxa ay dhalatay 1948 waxay ku dhalatay magaaladaasi Dhuusamareeb sida aan sheegnay waxaana markaasi aabaheed uu ahaa wadaad markaasi dadku ay aad u ixtiraami jireen Magool iyadoo yar ayaa waxa loo soo guuriyay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya waxaana markaasi ay ku soo kortay guriga abtigeedii oo markaa la oranayay Maxamed Xaaji kadib waxa ay timid magaalada Tani Hargeysa halkan oo ay fanka ka soo gashay kadib waxa ay dib ugu laabatay magaalada Muqdisho oo ah halka fankeedu markaasi uu ka hana qaaday heestii ugu horeysay ee qaada fanaanada Xaliima Khaliif Cumar Barre Magool ayay dadku waxay ku sheegeen inay ahayd heestii la oranayay Banaadiri waxaana heestaasi ay noqotay heestii ugu horeysay ee ay dadku markaasi ku maqleen Xaliima Khaliif Cumar Barre Magool bilowgaasi kadib ayaa Xaliima Khaliif Cumar Barre Magool waxa ay noqotay mid ay soo qaado heesas daba joogahay abwaaninta iyo fanaaniinta ayaa dhamaantoodba waxay doonayeen inay tartan weyn ay u galaan sidii midna markaasi uu la soo heeso midna markaasi uu eray ugu dhiibo Xaliima Khaliif Cumar Barre Magool haddaba Xaliima Khaliif Cumar Barre Magool oo ahayd fanaanad markaasi dadka ay aad u jeclaayeen ayaa dhanka kaleeto waxa taariikhdeedii laga xasuustaa in heesaha markaasi ay qaadi jirtay aysan kaliya ahayn heesa jacayla Xaliima ayaa lagu xasuustaa inay si aad markaasi ugu heesi jirtay heesaha guwaabada ee ku saabsan dalka iyo guud ahaan markaasi Afrika heesta loo yaqaan Afrika Hurdoy ayaa ka mid ah kaalimaha suugaaneed ee wadaniga ah ee lagu xasuusto Xaliima Khaliif Cumar Barre Magool Hey Afrika hurdoy adow ku heriye hurdoy hadiyad adi hurdoy hadbaun ay hurdoy Hey Afrika hurdoy adow ku heriye hurdoy hadiyad adi hurdoy hadbaun ay hurdoy ahamal sara hurdoy hayin sidiisa hurdoy la hogaaminaya ahamal sara hurdoy hayin sidiisa hurdoy la hogaaminaya away hana dadade bilillama hilabe away hana dadade duqombo habawsano weligeed halaysane sida xoolihiiba xiranada heestaasi kadib waxaa markaa jiray in abwaano badan oo Soomaaliyeed ay iyagu ay doonayeen in ay heeso u dhiibaan Xaliima Khaliif Magool waxa abwaanada markaasi doonayay inay fanaanadaasi heesaha u dhiiba kamid ahaa abwaanka la yiraahdo Maxamed Cali Kaariye Xasan Xaaji Cabdullaahi Xasan Ginay عبد القادر علي عقال عرو أبوان قرباوي عبد محمد أمين
iyo kuwo kaloo aad u fara badan. haddii aynu soo qaadano heesta jacayl dhiigma lagu qoray ayaa waxay ka mid tahay kalimaha suugaanta ee sida aadka ay markaasi dadku ay u qadariyaan. heestaasi ayaana heesta kaliya ee jacaylka dhabta ka hadlaysa, waxaana markaasi ay noqotay mid saameyn weyn ku yeelata bulshada markaas Soomaaliyeed. heestaasi kadib waxaa jirtay heese kaleeto aad markaasi dadku ay u jeclaayeen oo ay fanaanadu markaasi soo qaaday. dadka Soomaaliyeed ayaa guud ahaanba ka sinaa jacaylka iyo waliba inay ka mid noqdaan dadka aad u xiiseeya dhageysiga heesaha ay qaado Magool, waxaana ay lahayd shacbiyadii ugu badnaa ee markaasi fanaan uu yeesho. 19 bishii 3 sanadkii 2004 ayay ku geeriyootay Allah u naxariistay Xaliima Khaliif Cumar Barre Magool magaalada Amsterdam ee dalka Holland. wax caruur ma aysan dhalin Xaliima Khaliif Cumar Barre Magool, waxaana lagu aasay duleedka magaalada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. waxaana loo sameeyay aas qaran oo ay ka soo qayb galeen dhammaan noocyada kala duwan ee markaasi bulshada. Allah u naxariista ayaa leeyahay Xaliima Khaliif Cumar Barre Magool iyo intii markaasi dhimatay. toddobaadkan intaan ayaan ku hakinayaa xubinta markaasi aynu ugu talagalnay xasuusta fanaanka oo aynu ku soo qaadanay fanaanadii caanka ahayd Xaliima Khaliif Cumar Barre Magool.